The court sentenced him to death. The court sentenced him to death. Maxkamadda waxa ay ku xukuntay dil ama Someone has just picked my pocket. Someone has just picked my pocket. Qof ayaa hadda iibsiibay. Someone has just picked. The customer must pay the money in installments. Customerka waa in uu u bixiyaa lacagta si tartiib ah ama ha ay wareerin si with useful sentences oo jumladu waxtar leh wata. Conclude maxaa lagala jeedaa uu micneedu yahay. Las divine to come to an end inay wax dhamaadaan. To bring something to an end inaad u keento shay ama waxun inay dhammaad soo gaaraan ama dhamaadaan. To come to an end in wixii ay ku yimaadaan dhammaad. To bring something to an end inaad keento shay ama waxun gabagabadii ama dhammaadkii aad soo gaarto. An example tusaale. We are about waxaynu ku dhownahay to conclude inaynu soo gabagabayno the debate dooda. We are about waxaynu qiyaastii ku dhownahay to conclude inaynu soo gabagabayno this debate doodani. Honorable H was silent. Honorable maamusid. A title waa title used by ay isticmaalaan members ama loo isticmaalo xubnaha of parliament ee baarlamaanka when talking about marka ay ka hadlayaan wax ku saabsan or to another member ama xubin kale oo ka mida baarlamaanka during inta lagu guda jiro a debate. Honorable sharaf leh maamusid. waa title used by ay isticmaalaan members of parliament xubnaha baarlamaanka when goortii talking about ay ka hadlayaan wax ku saabsan or to another person ama shakhsi kale ama xubin kale during a debate inta lagu guda jiro dooda. An example tusaale. The honorable speakers waa hadlayaasha maamusida ama sharafta leh clapped waa ay sacabtumeen their hands when goortii the chairperson guddoomiyaha introduced them uu isbaray ama arar ama usoo bandhigay.